بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن داوديال وحيل هبين أو تاريخ تلاباتنك أين تهبين سنين ثلاثة يسوق ليسو بريتو حاضر كسفر دونا أو ثلاثة هدول يدمو وريان كي وينا يحول كخران كصومالي يسوق كوحدة هيجن كابتن كي كوحدة هيجن جبريل حسن فريد أو لو يقانو سدا صدتك إلهان إبرك دبرة أي يقان صومالي دا جبرك دربة marka horyaalka Soomaaliya wuxuu weyn doonaa laacib weyn oo waqti dheer ku soo qaatay horyaalka gobonimadiisa sidoo kale qaranimada Soomaaliya waxaan rabaa halkan inaan ku macsalaameeno iyadoo aan la yeelan doono wareysi kooban Jibril ku soo dhawaad Stan Sports وكلها سعيدة. هي balka warbixi safarkaaga Brito iyo halka uu ku wajahan yahay safarkaaga ma safar caadi ba mise koox kale ayaa rabtay inay u ciyaarto dad kale ayaa ku biiraysa بسم الله الرحمن الرحيم runti safarkii la duulay karaan oo bariyan baxayna duulayda oo baxay dadka Turkiga oo socda waxaana u socdaa duulay karaan noqdo Brito koox oo Turkiga dabcan koox halkaas ka dhisan ayaa ku biiraysa bal ka shakay habka kooxdaas ugu biiraysid iyo wadahadaladiina inta u socday runti in badan la hadlaynay oo markaas la hadlaynay hada horyaalka socday oo waxaan hadii aniga horyaalka inama ciyaara socdanayaan dib ayaan noo askar hadloodana duulayra horyaalka ma qordhamaadan waa isla hadalnay oo Instagram waana oo dhan wadiga inta horyaalka dhamaaday bacdi ma asku hadda inaa u maado oo xagga aad naadiga u tago marka waxaan jeclaa duulayna xagga tago dalka Turkiga aan qodasnayn tijaabiyaal wax badan oo mara duulayra way marka heshiiskiina ma hadda ayuu dhacay mise marka xagga aad tagtib ayuu heshiiska dhacay marka xagga tago bacdi oo dhacay duulayra marka qadaraaska oo kooxdaas la galaysa imise sano ayuu ku cidoona runtii horta waxa bay kooxda marka xagga tago waxa qandaraas ku dhacay marka iikeen kasfahno ku beddelay soo bandhiga ay arkaan markaas waxa bay qandaraas ku leeyahay karaa hadda qaabkee ay kula soo xiriireen qaabkee ay isku ogaadeen inaad ciyaareen wanaagsan oo ku wanaagsan kubadda cagta runtii waxyaalo badan mar dad badan ay soo xiriireen kooxdaas oo hatta YouTube area ka fiirsaneen YouTube kasoo area ku jiraan meeshan waa ka arkeen runtii waxay leeyihiin dan leef aan ku arno ka si fiican lahayd oo adigu caadiga marka ay meetida kale too aan waxyaalo badan jawaab badan kula marsiino duulayda marka duulayda marka meesha tago waxyaalo badan soo bixi doona duulayda way bal ka waran waayahay kooxda Hagen dabcan waa soo gabagabaysay goorma ku soo biirtay kooxda Hagen لا كود هيك ما soo biiray 2010 soo biiray oo halka kaga soo biirtay kooda Brent Sports Club ayaa kaga soo biirtay waayahay Hagen maxaa ku xasuustaa oo guulo ala qaadatay runtii Hagen waa naadi aad u jeclahay oo waqti dheer aan soo qaatay ilaa 7 sano aan soo qaatay runtii mana ilaabi doono ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Hagen iyo dhammaan taageerayaasheeda maamulkeeda dhammaan ma ilaabi doono markastana waxaan u taaganahay inaan kooxdaas garabkeeda taagnaa doono duulayga way kulankaada ugu dambeeyay Hagen oo ciyaartay kooxa kulankii ugu dambeeyay waxa kulankii hadda ugu dambeeyay Jaran Daawudkii afar dhamaadkii ugu dambeeyay quarter finalkii oo kooxda Elman Hali ee nagu badisay goolkaada ugu dambeeyna Hagen goorma u dhalisay waxa uu dhashay horyaalkii kulankii ugu dambeeyay aad oo kulanka aan leelin gaadiidka aan u badan 3-2 goolkii ugu dambeeyay kulkaas oo ay inkastoo tirada ama statisticska ciyaartooyda Soomaalida aysan qorayn haddana qiyaas ahaan ilaa intee gool ayaa isleedahay Hagen oo u dhalisay 7 sano la joogtay runtii 100 gool u dhaafay goolashii aan u dhashay tirada safashadana kulleeto boqolaal way dhaafay si fiican waayahay inta Hagen joogtay guusha ugu weyn ee xasuustaa aan macaawan ma sheegtaa runtii guul saas weyn aan maanta meeshan ka xasuusto karaa habeeraatee ma jirto waayo guul badan oo waxyaalo speaker waa xasuusto kartaa waa jiraan hal guul aan ka soo qaadan karaa habeeraatee ma jirto runtii Hagen kun ugu horeeyay aan horyaalka aan u ciyaaray waxay horyaalka 2011 oo ku bilaabay jaamacadda goolkii ugu horeeyay gool soo ahay waayahay waxaan noo sheegtaa inta Hagen joogtay sidoo kale kooxdii kugu adkeyd ka hortagtay markaa la ciyaaraysay runtii waxaa igu adag waxa waaye kooxda Brent Sports Club iyo kooxda Jenya goolkaadii kugu dahabsanaa ama kugu qaalisanaa Hagen oo dhalisay kooxa runtii goolkii ugu qaalisanaa ugu dahabsanaa waxa waaye kooxdii aan ka dhashay Brent Sports Club goolkii horyaalkii hadda dhamaanayay oo uu dhashay garoonka jaamacadda kooxda ugu badan ee gool ka dhalisay horyaalka Soomaaliya 7 sano ka ciyaaraysay kooxda waa isleedahay hada runtii kooxda Jenya iyo kooxda Elman qiyaasan ma ka dhalisay runtii todoba kala sheegay waayahay dabcan saaxiibo badan ayaa ku yeelatay kooxda Hagen ilaa aad ka noqoto darajada ugu sareysa ama ciyaartooyga ugu sareysa oo kabtana saaxiibadii kugu qaalisanaa ama saaxiibkii kugu qaalisanaa ee inta kooxda Hagen kamid ahayd oo kuma runtii waxa ahay Deeq Abdullah Nur Deeqaariyo marna aan walaalnaanay marna isku la deganay ninkaas waay
ويا معلمين الصومالي معلم كي لو كرين أو هرمرك iyo ciyaaraha ka qayb qaatay xagga kooxdeegan runtii macalinkeena horyaalka noo qaaday macalin kidamo oo macalin aad u weyn aad u laab doon markastana igu dhiirigeliyo jiray inaan kubadaha markasta aan ciyaarayo inuu ilaa hadlo wax hoos wax ugu sheego runtii waa macalin aad u weyn aan jeclahay oo kooxdan horyaal la qaaday quadra final la keenay General Daud iyo Super Cabo والله قال يقولوا عن نصيب لباس ciyaar aan ciyaaran laakiin waa macalin aad u weyn aan jeclahay وياي ciyaaryahankii ayaa aad u jeclaan jirtay inuu garoonka garabkaaga buuxiyo oo kula ciyaaro runtii ciyaartoyda kooxda kubadda cagta iyaga dhammaan waa jeclahay inay garoonkaas la galaan 11 garoonkaas la galayno oo horyaalku qaadin aad u jeclahay ciyaartoydaas todobadii sano heegan aa u ciyaaraysay taageere kuu qaalisan aad maanta loobi karin oo aan niyad ku hayso oo kooxdeegan taageero ah wallaahi taageerayaasha aad u badan taageerayaasha hatan mas'uulka markasta waa soo xiriirnaa waa markasta waxaan naga dhaxeeyo kontakti aan naga dhaxeeyo runtii waan isla hadalnaa waan isla sheekaysanaa hadda xal ugu dambeysay laakiin maanta ugu dambeysay joogeen runtii waa taageerayaasha aad u weyn aan sidii gudoomiyaha kooxda taageerayaasha oo heegan aad kabtan G aad aan markasta u sheegan taageerayaal aad weyn oo aad u jecel markastana oo qarabkeena taageerno waayahay dabcan waxaa tahay ciyaaryahan Soomaalidu dhan ay ku tashtaan markaa noqoto ciyaartooyda ugu caansan Soomaaliya markaas ka ciyaaraan sanadihii ugu dambeeyay qaranka maad ka mid ahayn waxaan ahayd ciyaaryahanka ugu caansan qaranka oo ciyaaray xagga waxqabadka ma rajaynaysaa adigoo ka faa'iidaysanaya waayo-aragnimada aad ka doonayso Yurub inaad qaranka Soomaaliya dib ugu soo laabatid oo aad u ciyaartid runtii horta qarankaada waa markasta la muran waayo oo ciyaarta runtii garoomada ugu dambeeyay oo qaranka aan qaybkeen waayeed aniga ahaanta in laga tagay maahan laakiin aniga ayaa qaranka iska andhaay inaan iska nastaan jeclahay oo qaranka in badan waan baahnay maalin kastana waxay tahay iyo waxyaalo badan waa lagu soo baraa bulshada lagu soo baranaya runtii anaan macalinkii sanadkii hore oo macalinka Afrika loo dhibaayo Ethiopia aaday aniga diido ma baxay dhahay markii safarka labaad oo salaatan runtii dad ciyaartooy badan oo kamid yihiin Xasan Bay Cabdi Boqori Hargandi oo isu diray inkaas ilaa oo baana runtii dad darteedan kun kalbaad aan ku bahay waqti labaad aan ku bahay maana aniga hatta ma jeclan kun hadda ciyaari hadda taana anoo lii baahan yahay ma bixi karaayo oo barnaamijka ku mashquulsanahay kan hadda tan la imtixaan sidoo kale safar ay ugu jiraan waayahay waraysigeena gabagaba ayuu Jibriil marayaa ciyaaryahankee ayaa noqon doona midka ugu dambeeya aad maxsanameynaysid maadaama aad bixaysid intaada ka bixin Muqdisho runtii ciyaartoyda maxsanameynaayo waxay tahay ciyaaryahanka ugu dambeeya rabaa maxsanameynaysid ciyaaryahanka ugu dambeeyo aan sidii karo waa maxsanameynaysaa waa ciyaaryahankii cawad aan sarnay maad meekon oo kabtankii labaad kooxda kubadda cagta heegna ay hadda waqti soo qaaday qofka ugu dambeeya markaa Muqdisho ka duulaysan iyo noqonaya runtii qofka ugu dambeeya waa dareemi kartaa waa naqdana carruurteeda aad u maasantahay waxaa waraysigii aan la yeeshay Jibriil Xasan Fariid kabtankii qaranka iyo sidoo kale kooxda heegan oo muddo 7 sano kadib dhigay fanaanada kooxda heegan isla markaana ku biiray mid kamid ah kooxaha waddanka Turkiga waxaan u rajaynaynaa haddana Bal Star Sports guul iyo sidoo kale inuu taariikh sameyn doono ciyaaraha kubadda cagta aad u maasan Jibriil